maleeshiyaadka khawaarijta howlgal ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose. madaxweynaha Ruushka xiisadda reer galbeedka iyo Ruushka waa mid ka baxsan falsafada dagaalka ka dhanka istiraatiijiyadda dagaalka Suudaan oo faraha ka sii baxay iyo RSF oo la wareegtay goobo muhiim oo istiraatiiji ah. Shiinaha oo soo saaray kabshidaal oo ku shaqeeya hawada. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin intaan barnaamijka ku guda jirno. haatanna waxaad ku soo dhawaatiin isagii oo faahfaahsan. waxaa saakay dagaal culus uu ka dhacay deegaanka Ceelsi gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada isku dhafka ee nabad sugidda qaranka iyo kuwa deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay fuliyeen howlgal qorsheysan. howlgalkan ayaa yimid kadib markii la helay xog sirdoon oo lagu ogaaday in kooxaha khawaarijta ay isku aruursanayaan deegaanadaasi si ay u fuliyaan falal argagixiso oo ka dhan ah shacabka iyo ciidamada amniga. ciidamadu waxay si adag uga falceliyeen xogta iyagoona qaaday weeraro toos ah oo lagu bartilmaameedsaday goobihii khawaarijta ay ku dhuumaaleysanaysay. dagaal adag ayaa halkaasi ka dhacay waxaana ciidamada si buuxda ula wareegeen goobihii ay khawaarijta ka joogeen Ceelsaliin iyo Buushka. gudoomiyaha maamulka degmada lambar konton mudane Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii wuxuuna tilmaamay in ciidanka ay guulo muhiima ka gaareen islamarkaana ay burburiyeen fariisimihii muhiimka ahaa oo ay khawaarijta ku lahaayeen halkaasi. ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ayaa si wada jira u fuliyey howlgalkaani waxaana uga mahad celinayaa geesinimada iyo khawaarijta kula dagaalameen. waxayna khawaarijta lumiyeen goobihii istiraatiijiga ahaa waxaana looga dilay qaar ka mid ah horjoogayaasha deegaanka ee ku sugnaa ayuu yidhi gudoomiye Maxamed. wararka naga soo gaaraya magaalada Gaza ayaa sheegaya in askari calooshii shaqaystaha oo Mareykan ah oo wejigiisa qarsaday islamarkaana si buuxda u hubaysnaa ayaa si toos ah ugu dhuftay sunta ilmada ka keenta ee tiigar gaas. dad rayid ah oo saf ugu jiray gargaar bini'aadanimo. muuqaalka goobta laga duubay ayaa muujinaya dad isugu jira haween iyo caruur iyo rag waayeelo ah oo kusta raashinka laga bixinaya ayaa durbo wajahaya cabsi iyo argagax iyo kala carar kadib markii ay la kulmeen weerar lama filaan ah. goobta uu weerarka ka dhacay ayaa lagu tilmaamay meel si rasmi ah u hoos timaada xarunta gargaarka ee gobolka Gaza, halkaas oo kumanaan qof ay maalin walba tagaan si ay u helaan cunto iyo gargaar caafimaad. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in askariga uu muddo dhowr daqiiqadood ah taagnaa meel sare isagoona toos u beegsaday dadka safafka dheer ku jiray kadibna uu u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa. dadka la beegsaday waxay ahaayeen dad aan waxba galabsanin kuwaas oo u yimid waxay cunaan. weerarkan ayaa imaanaya xilli magaalada Gaza ay aad u liidato dadkuna ay gaajo dariiqyada uga dhimanayaan iyadoo caalamka weli uu ka aamusan yahay. muuqaal shalay laga soo duubay waqooyiga marinka Gaza ayaa muujinaya dagaalyahano Falastiiniyiin ah oo isku mar qarxinaya laba taangi oo mid ka mid ah ay taangiyada gebi ahaanba qarxiyeen halkii askartii saarneedna ay waxyeeloobeen. waxaana maalmihii u dambeeyey sii kordhayey khasaaraha ay ciidamada Israa'iil la beegsanayaan ururka iska caabinta ee Xamaas. tallaabooyinkan nafhurnimada leh ee iska caabinta Falastiiniyiinta waxay horseedaysaa guulo waaweyn taasi oo Israa'iil ku qasbi karta inay heshiis xabad joojin oo shuruud lahayn la gasho kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiinta. wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa ku warantay in madaxweynaha Iiraan uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii Israa'iil ay ka geysatay gudaha Iiraan intii lagu guda jiray dagaalkii 12 maalmood ee ka socday ee bishii Juun markaa oo lugta dhaawac fudud uu ka soo gaaray. weerarkan wuxuu dhacay 16 bishii Juun oo si toos ah Israa'iil u beegsatay goob sir ah oo ka tirsan qaybaha hoose ee dhismaha ku yaala waqooyiga Tahraan oo xilliga uu ka socday kulan gaar ah oo ay leeyihiin golaha amniga qaranka ee Iiraan. mas-uuliyiinta Iiraan waxaa u suurta gashay inay ka baxsadaan dhismaha iyagoo adeegsanaya marinka degdega ee kadib markii qaar ka mida ay dhaawacyo fudud soo gaareen iyadoo la tixraacayo xogta sirdoon ee Israa'iil ka heshay kulanka golaha sare ee amniga qaranka. waxaa haatan socda baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo suurtagalnimada ah in qof ka mid ah dadka kulanka joogay ama xubno sare oo la socday oo la shaqaynayeen sirdoonka Israa'iil dalka Azerbaijan, taasi oo loo arko tallaabo cusub oo istiraatiiji ah oo la xiriirta xiriirka caalamiga ee gobolka. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP waxaa la filayaa in kulamo hoose iyo wadahadallo toos ah ay halkaasi ku yeeshaan mas-uuliyiin ka kala socda Suuriya iyo Israa'iil si loo hirgeliyo isku day cusub ee diblomaasiyadeed xiisadda u dhaxaysa labada dal. Suuriya ayaa doonaysa inay dardargeliso xiriirka diblomaasiyadeed iyadoo weli la daalaadhacaysa
cunaqabatayna caalamiya iyo burburka dhaqaale. Israa'iil dhankeeda waxay xiiseynaysaa xaaladda deegaanka iyo in la helo hannaan laysku fahmo oo la xiriira xadka ay la wadaagto Suuriya. Haddii ay wadahadaladani miro dhal ay noqdaan, waxay noqon doontaa isbeddel weyn oo taariikhi ah, maadaama labada dal ay wax xiriira aysan lahayn tan iyo intii dagaalkii 1997 ee Goolani. Tani waxay sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa xiriirka dalalka kale ee gobolka sida Israa'iil iyo Ruushka iyo Turkiga, kuwa oo door ku leh arrimaha Siiriya. Shiinaha ayaa qaaday tallaabo muhiim ah oo dhanka tiknoolajiyadda kadib markii uu soo saaray markab shidaalka qaada ee aan shidaal isticmaalaynin balse ku shaqaynaya tamarta dabaysha. Markabka oo lagu magacaabo New Energy Cargo ayaa ah kii ugu horreeyey ee noocaana isaga dhiso gudaha Shiinaha, islamarkaana si buuxda loogu adeegsanayo teknolojiyadda cusub ee ku dhisan shiraaca casriga ah. Markabkani wuxuu adeegsaday shareecyo elektarooniga si otomaatiga u wajihi kara dabaysha, taasi oo suurtagelisay inuu helo xawaaro sare iyadoo aanan la adeegsanaynin wax shidaal ah. Tiknoolajiyadan ayaa ah mid dib loogu celinayo farsamada doomihii ganacsiga ee qarniyadii hore, balse si casri ah loo horumariyey. Waxaa la sheegay in markabkani uu hoos u dhigi karo 100 tan ee qiiqa carbonka ah sanad walba, taasi oo qayb ka ah dadaalka lagu yareynayo isbeddelka cimilada iyo wasakheynta hawada ee ka timaada gaadiidka badda. Tallaabadan ayaa Shiinaha ka dhigaysa dalkii ugu horreeyey ee si rasmi ah u soo saara markab ganacsi oo culus oo aan shidaal ku shaqaynaynin. Waddamada kale sida Jabaan iyo Norway ayaa iyaguna bilaabay tijaabooyinka la midka ah, balse Shiinaha ayaa hadda u ah hoggaanka isbeddelka. Markabkan cusub ee shidaalka qaada balse ku shaqeeya dabaysha wuxuu tusaale u yahay in teknoolajiyadda casriga ee lagu adeegsan karo xalinta dhibaatooyinka deegaanka, wuxuuna astaan u yahay himilada Shiinaha ee gaarsiinta warshadaha gaadiidka cagaaran ee Green Transport ee heer caalami. Tartanka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha ayaa galaya marxalad cusub ay cabsi ka taagan tahay inuu isku beddelo isku dhacyo militari oo dhinaca dagaalka qabow. Tani waxay daba socotay hadallo adag oo ay labada dhinac isdhaafsadeen, iyadoo Shiinaha laga dareemayo ka falcelinta xoogan ee kaga duwan aamusnaantii hore ee siyaasadda. Maraykanka oo dhowr jeer ka digay dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya ee Shiinaha uu ka wado badda koonfurta Shiinaha, gaar ahaan dhanka jasiiradda Taiwan, uu ka jawaabi doono haddiiba ficil looga hortago midnimada dhankiisa. Maraykanka ayaa sidoo kale xoojinaya xulufadiisa gobolka sida Jabaan, South Korea, Kuuriya iyo Filibiin, taasi oo Beijing u aragta go'doominta istiraatiijiyadeed. Waxaa jira maraakiib dagaal ama diyaaradaha qaarkood inay qabtaan goobaha la isku hayo, halkaasi oo la filayo inay isku dhacyo ka imaadaan. Dhinacyadu waxay bilaabeen inay ismari waayaan dhanka tiknoolajiyadda, jiibyada iyo aaladda sahayda iyo warshadaha muhiimka ah. Sidaa darteed waxay falanqeeyayaal badan aaminsan yihiin in dunida ay u sii jeedo kala qaybsanaan la mid ah midii Maraykanka iyo Midowga Sofiyeeti. Xiisadda u dhexaysa Shiinaha iyo Maraykanka waa mid aan ahayn keliya tartan dhaqaale, balse uu noqday loolan siyaasadeed ee difaaca istiraatiijiga ah. Haddii aan la helin xal diblomaasiyadeed, khabiiradu waxay ka digayaan inay xiisadani u horseedi karto dagaal toos ah. Inkastoo labada dhinac ay ka cagajiidayaan, tartankan cusub wuxuu si toosa u saameyn karaa amniga gobolka, Aasiya, Basifiga, ganacsiga caalamiga iyo xasiloonida dunida inteeda kale. Dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa galaya marxalad cusub oo khatar badan kadib markii ay ciidamada RSF ay si buuxda ula wareegeen aagga Umaama Samiin oo ku taala koonfurta Kordofaan, meel istiraatiiji ah oo xuduud la leh gobolka Darfur iyo xarumaha saldhigga militariga ee dowladda. RSF ayaa weerar culus ku qaaday aagagaasi, waxayna gacanta ku dhigeen hub iyo gaadiid dagaal iyo saldhigyo muhiim u ah Umaama Simama, waxayna tahay meel muhiim u ah oo isku xira bartamaha iyo koonfurta Suudaan, taas oo muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ciidamada. Wararka diblomaasiyadeed ayaa waxay sheegayaan in dagaalka Suudaan uusan ahayn mid gudaha un ah. Imaaraadka Carabta ayaa la tuhunsan yahay inay toos u taageerayaan, iyadoo la sheegayo inay siiso hub iyo dhaqaale. Masar ayaa iyaduna waxay taageeraysaa ciidamada dowladda maadaama ay ka cabsi qabto inay foodada Suudaan ay saameyso amniga Niil. Turkiga ayaa la sheegayaa inuu xiriir hoose la leeyahay dhinacyada qaar, iyadoo ka dhex raadinaya saameyn istiraatiijiyadeed ee gobolka. Dagaalka wuxuu khatar gelinayaa xasiloonida guud ee gobolka Geeska Afrika,
beesha caalamka waxay muujinaysaa walaaca xooggan balse weli xal muuqda lagama gaarin. la wareegidda umaama simaama waxay calaamad u tahay inuu dagaalka suudaan uu sii galayo wejigii labaad, iyadoo quwadaha shisheeye ay si toosa u kala taageerayaan dhinacyada ishaya. cabsida la qaba ayaa waxay tahay in dagaalkan uu isku rogo mid ballaaran oo gobolka dhan saameeya. madaxweynaha ruushka valadimir putin wareysi gaara oo laga sii daayey telefishinka RT ku sheegay in khilaafka u dhexeeya ruushka iyo reer galbeed muddada dheer loo fahmi jiray inuu salka ku hayo kala duwanaanshaha mabaadi'da siyaasadeed ee sida shuuciyadda iyo midowda sofiyeeti iyo dimuqraadiyadda reer galbeedka, balse maanta ayuu sheegay in xaqiiqda ay tahay mid ka sii qoto dheer. wuxuuna yidhi arrinka ma aha falsafad siyaasadeed oo keliya waa isqabqabsi xooggan oo ku salaysan danaha juqraafiyadeed iyo istiraatiiji ee reer galbeedka, waxayna si ula kaca u tirtiraysaa danaha ruushka. putin wuxuu si gaara u dhaliilay danaha reer galbeedka, wuxuuna ku tilmaamay ixtiraam la-aanta reer galbeedka ku hayaan maslaxiyadda ruushka, taas oo uu ku macneeyey dadaal la hubo ama lagu yaraynayo laguna burburinayo saamaynta moscow ee caalamka. wuxuuna reer galbeedka ku eedeeyey inaysan weligood doonaynin inuu ruushka yeesho. wuxuuna sheegay in dagaalka yukrain xiisadda kale ay yihiin ififaale ka dhashay cadaadis siyaasadeed ee diblomaasiyadeed. wuxuuna ugu baaqay reer galbeedka in la ixtiraamo xuduudaha danaha qaranka ee ruushka. hadalkani putin ayaa wuxuu ka turjumayaa mowqifkiisa sii adkaanaya ee moscow, iyadoo xiisadda yukrain ay sii cakiran tahay, halka reer galbeedka ay sii kordhinayaan cadaadiska dhaqaale iyo midda militari. waxaana muuqata in labada dhinac aysan haatan u muuqanin kuwo u diyaar ah isu soo dhowaansho nabadeed ama wadahadal. wasaaradda difaaca ee maraykanka ee Pentagon ayaa markii ugu horeysay qiratay mid ka mid ah gantaalada Iiraan oo si toosa ugu dhacay saldhigga militari ee Al Udud ee ku yaala dalka Qatar, halkaasi oo xarun muhiim u ah ay ku sugan yihiin kumanaan askari oo Maraykan ah. afhayeenka Pentagon oo la hadlay wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa xaqiijiyey weerarka kadib warbixin ay baahisay AB lagu soo bandhigay sawirro dayax gacmeedka ah oo caddaynaya burburka gaaray qaybo ka mid ah xarunta sirta iyo isgaarsiinta ee saldhigga Maraykanka. gantaalka Iiraan wuxuu si toosa u beegsaday xarumo muhiim ah oo sirdoonka iyo isgaarsiinta ee militariga Maraykanka ee ku leeyahay Qatar. Pentagon ayaa qiray in khasaare yar ay dhaceen balse aysan jirin wax dhimasho ah. weerarka wuxuu yimid xilli xiisadda culus ay ka taagan tahay gobolka, gaar ahaan xiriirka Maraykanka iyo Iiraan. waxaa dhabarjab siyaasadeed iyo mid amni uu ku dhacay Maraykanka, waxaana sare u kacay walaaca Iiraan ee kartida ay u leedahay beegsashada xarumaha sirta ee Maraykanka ee ku yaala bariga dhexe. weerarkani wuxuu muujinayaa isbeddelka cusub ee ku yimid istiraatiijiyadda Iiraan, iyadoona toos u beegsanaysa danaha Maraykanka ee gobolka. sidoo kale wuxuu dhiirigelin u noqon karaa xiisad hor leh oo laga cabsi qabo inay ka dhacdo gobolka bariga dhexe.